أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiisu haddaan mar kale hawada kusoo laabanay anagoo wanaag isfareen xumada iska reebeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka bari dhammaanteen ilaahay noo naga dhigaa kuwa ku intifaaca wixii loo sheegay iyo waxaan sheegaynaba. xaqiiqatan weli waxaan ku jirnaa bilihii ilaahay subxaana wa tacaala xurmeeyey ashhur alxurum. waxaa jirta 4 bilood oo ilaahay subxaana wa tacaala oo ka doorta bilaha kale oo lagu tilmaamo ashhur alxurum. ashhurkaas xurumka ah dagaal in la qaado oo xataa gaalada iyo muslimka markii la galaya dagaal in la qaado ma aha, balse waxaa la xarimay dulmiga asagoo caam ahaan xaaraam uu yahay in las dulmiyo ayaa haddana waxaa leeyahay bisha 4taas bilood oo ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ku sheegay uu ku yidhi ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaabi illahi yowma khalaqa asamaawaati waalard minha 4 xurum. ilahay wuxuu leeyahay afar bil ayaa ku jirto xurum ah oo noo sheegay dalika diin lqayma falaa tadlimuu fiihina anfusakum. oo ilaahay subxana wa tacala leeyahay 4taas bilood gudahooda ha naqanina kuwa isdulmiya, oo xataa waxaa la diiday inaan isdulmino ayaa la diiday 4taas bilood. marka waxaa arkaysaa inay tahay qofka muslimka ah mar kasta laga doonayo inuu ku dadaalo 4taas bilood inuu is ilaaliyo ayaa muhiim ah. sidaa la socotaan bishan marka oo ah bisha muxaram, shahrullahi muxaram, shahrullahi muxaram, bishan oo shahrullahi muxaram ah waxay tahay inay qofka muslimka la doonayo mar kasta inuu ku dadaalo miisa qaar ay leedahay bilaha kale idinka duwan. wadalika culamada markay ka hadlayeen 4 bilood oo ah ashhur xurumka waxa weeye waa 3 sarad, 3 oo isku xigta oo ah dulqicda iyo dulxija iyo muxaram. waa 3 isku xiga wey, 3 bilood isku xiga iyo rajab mudar uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaam bisha rajab oo iyadana bil gaar ah. saas daraadeed ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi bakrata wuxuu leeyahay xajatul wadaac markuu khudbaynayay nabiga calayhi salaatu wasalaam alaa ina zamana qad istadaara ka hay'atihi yowma khalaqa asamaawaati waalard. wuxuu leeyahy waqtiga waa soo wareegsaday ilaahay subxana wa tacaala markuu abuuray sidii u abuuray samaawaadkii ardooda. wuxuu yidhi 12 shahran weeye, sanadka waa 12 bilood ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. minha 4 xurum, 3 ku jirto 4 ku jirto oo shahrul xurum la dhahaya. wuxuu yidhi 3 mutawaaliyaat, 3 waa isku xigaan, waa dulqicda iyo dulxija iyo muxaram, 3 xiga iyo rajab mudar bayna jamaadi wa shacbaan uu ku tilmaamay nabiga calayhi salaam. xadiiska muttafaq calayhi bukhari muslim. halkaas waxaad ka arkaysaa marka 4taas bilood waa ka duwan yihiin oo ilaahay qur-aanku noogu sheegay uu yidhi sanadka waa 12 bilood. 4taas bilood ku jiro ashhur xurumka ah oo ilaahay leeyahay falaa tadlimuu fiihina anfusakum, naftiina ha dulminina. ayaa culamadu waxay leeyihiin imaam qurtubi iyo keyrkiisaba waxay leeyihiin ma banaano dulmi sidiisa macaan ahaan, laakiin bisha ashhurkan xurumka waxaa loo qasisay waa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ka doortay waa bilaha kale. haddii marka 4ta la yimaado laftigooda ayaa waxaa leeyahy marka waxaa ugu sii falli badan culamada qaarkood waxay leeyihiin shahru lxurum, shahr muxaram, shahrkan bishan muxaram aan ku jirno. walidalika miisay leedahay shahrullahi almuxaram, ilaaha loo nisbeeyey. marka xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kasoo wariyni waa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam oo laleeyahay yaa ugu fadli badan xadiiska abi dara sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam ayu leyla khayr wa ayu ashhur afdal. maalmaha kay ugu khayr badan, bilahana kay ugu fadli badan. wuxuu yidhi khayru leyli joofuhu weye, habeenka dhexdiisa sakda dhexe salaatuleilka ayaa ugu khayr badan, waa thuluthka ilahi subxana wa tacala dambe ilahay soo degaayo wey ayaa ah. wuxuu yidhi wa afdalu ashhurina shahrullahi aladi tadcuunahu almuxaram, shahrullahi ilahay loo nisbeeyey tashriifan ilahay in lagu sharfo ayaa leeyahay. walidalika afdalu shuhuur inuu yahay bacda ramadaan ee culummada inta badan ay sheegen waxay leeyihin bilaha ugu qaybidaan waa bisha ramadaan. haddii la reebo ramadaan markii laga soo reebana ama waxaa leeyahay bacda ramadaan waxaa ugu fadli badan shahrullahi almuxaram, ta hadda ku jirna wey shahrullahi almuxaram. xadiiska kale nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu haddana sheegay wuxuu leeyahay soonka khaasatan bilaha la soomaayo dadka waxaa weeye ashhur xurumka in la soomo waa wanaagsan tahay.
balse cibaado kasta ilahay noogu dhowaado waa fiican tahay. hadda waxaan soo marnay dulxijaan soo marnay oo 10 maalmood oo ilahay ku dhaartay ku jirtay oo bisha dhan barakaysneed oo waxay ahayd bil oo ashhur xurum kamid ah dulxijda dulqicda tii ka horeysay sidoo kale hadda waxaan oo dhalatay sanadka cusub oo muharram waxa leeyahay hadii la yiraahdo soomanka la soomay bilaha markii ramadaanka hadan laga reebo yaa ugu fali badan waxa leeyahay waxa ugu fali badan shahriga bishaan oo kale in soonka la badiyo bishaan oo kale in soonka la badiyo ayaa fali badan wadalka xadiiska abi hurayra imaam muslim soo wariyay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay afdalu siyaami bacda ramadaan fiiri afdalu siyaam soon la sooma kan ugu fali badan markii laga soo taga ramadaan wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa shahrullahi almuxaram idan bishaan in la soomo hadda maasha allah maalmahan soon baa isku soo xigtay maanta khamiis ay ahayd beri waxaa la soomayaa waa sagaalkii oo muxaram weeye sabdigi waa 10kii muxaram weeye 11 axada ah haddana isniina bilaabanayso oo maalmihii la soomaya haddana waxaa bilaabanaya ayama beydka bilaabanayo oo ah 3 4 khamiis waa asbuuc waxa weeye oo soon le ah bishaan waxaa la leeyahay waxaa ugu fali badan bilaha kale in la soomay bishaan in la sooma ugu fali badan ayuu xadiiska leeyahay wuxuu leeyahay afdalu siyaami bacda ramadaan soon la sooma ramadaan kadib waxa weeye shahru al-muharram wa afdalu salaati bacda fariida salaatu leyl waa salaad la tukadane markii fardiga ashanta salaad laga tago salaadaha ugu fali badan la tukado waa tan salaatu leylka la tukado wey nacam walidaalika afdalu marka qofka raba inuu tatawuco ama uu qallo gudo dada qallo lagu leeyahay dadka qallada gudaayo kale waxaa laga doonayaa markaan oo kale inay ogaadaan qalladan oo kale waxa inay iska gudaan bishaan oo kale inay iska gudaan qallooyin badan kugu jiro Soomaa hadda markii waqtiyada hadda fali badan oo Ashura iyo ayaan beydkii laga baxo waxa ku wanaagsan inaad markaas asoontid hadda qallo gudaysidbo ku aadi qalladaada bisha muharram ku aadi maxaa yeelay soon ama qallaha aad ama fard aad waa la idlaaqay oo wuxuu ku fiican yahay bilahan oo kale in la gudo ayuu ku wanaagsan yahay nacam Ashura waxa ku jirta bisha muharram waxa ku doorto haddana maalin Ashura ku jirta fayd ayadoo soonkeedana wanaagsana ayaa haddana waxa ku jira yoom Ashura oo maalin sabtiga haddana soo haya ah oo qofka muslimka raba inuu ku dadaalo inay gafin maalmaha 9 jimcaha iyo sabti hadduu soomi karo hadduu saddexda sooman waan sheegna waa wanaagsan tahay maxaa yeelay mararka qaarkood bisha waxaa leeyahay sabti 10 ma ahan 10 waxa ah axada ah haddii la yiraahdo 10 axada ah macnaha sabti axada soonto markaas 10 waa heshay saasaa laga wadaa haddii la yiraahdo sabti 10 waan jimci axad jimci iyo sabti marka haddaa saddexda ku soontidne waa wada helaysaa insha Allah qadka telefoonka الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعي ولا وفيصل محمد شيخ عبد الرحمن وديري مقرت واقرت الجرملكا واقرت شيخ السوري آديات بعض ما سنت هذه وبعدها يونيفرسال سيدا وعنا أدو مدة سوماليات أدو أديكتين أدونا جزاكم الله خير بارك الله فيك. سؤال شو رئيسا كويدين لا شيخ واحد هاي عيدي أدو قدام بيسو ولا صودا في وحكوسو أدي مالين جمعة واقرت markan salaada jimcaadi soo tukanay ayaa sheekhi khudbada masaajidka ayaa wuxuu yiri maadaama maanta laba ciid tahay ciidul adha ciidul jimca ay tahay marka salaada ciid khudbada jimcaada iyo salaada ciid ma tukan kartaan oo waad istiraaxi kartiin uu yiri ma garatay واقرت marka masaa'ishaas bal inaad naga jaahil bixisayaan ma waa jirtaa arintaas waa soo aroortay laakiin jimcada lama baajinayo magaalada jimcada waa lagu oogayaa dadka magaalada meelaha ka fog ka imaanayo oo jimcaha u yimid daraadeeda kuwaas oo kale maadaama ay ciid u yimaadeen inay iska markaas duhur gurigooda ku tukadaan ayaa wanaagsan oo markaas jimca ay u soo naqanin sheekhu wuxuu yiri salaada 4 ragco iyo labada ragco jimcada la tukado يعني واجبك هاد ما تكون قرتانا عمل أيوان مفان ما قرتي ما معنى الجمعة ما لتكنايو توتالين مع الظهر حتى ظهر دنها ما قول كاس وقول مهجور ومحا يلي في قفك مسافر كلفتيسا وجمعة كدعدي قفك مسافر كعذر كله عدي عذر جليري جمعة ما تكون كرتي أجر كيدو كجرو جمعة فل بدن وعيد نيك مريض كا لما دهين هذا ظهر تكون marka fiirisid nusuusta markii la isku celceliyo asalka waxa way shanta fardiyeed ma dhacayaan oo Ilaahay nagu qoray nacam jimcada booskeedii markay jimcada duhurka booskiisa waxa galayo jimca galaysa laakiin
macnaheeda ma aha qofka aan tukan karin inuu duhurna tukanaynin maaha qofka aan tukan karin oo xanuunsan ama musaafirka ah jumcadu waa ka dhacday cabdiga kamid ah ninkii oo la leeyahay waqtigii hore waxa la leeyahay asaga waa ka dhacday laakiin gabadha muslimada jumca haddii tukanin waajib kuma aha laakiin lama dhahayo jumcada maadaama ka dhacday duhurna waa ka dhac lama dhahayo nacam baarak allah fiik nacam marka waxaan ku jirnaa ashhur xurumka hadda cashuura ayaan marka axkaamteeda nabiga alayhi salatu salaam xikmada ku jirto ee loo soomaayay cashuura maxay tahay xikmadaas waxay tahay waa nasri la gaaray guul muslimiinta ay gaareen ayaa laga shukrinaya waa la dhihi karaa nicma shukr nicma maxaa yeelay way dabaaldegeen yuhuud nabiga alayhi salatu salaam wuxuu yimid dabaaldegayso dhayso maalinkan fircoon ayaa laga adkaado nabi muuse adkaaday nabiga alayhi salatu wuxuu yidhi annaga aniga owlisan marka halkaas waxaa cad marka dabaaldega qofka markuu nicmo ku shukrinayo oo aan nicmo ilaahay siiyo oo ku shukrinayo waxaa fiican cibaada in la sameeyo halkaas waxaan ka fahmaynaa masalan waxa nabiga alayhi salatu wasalaam maalinta isniinta maxaa la yidhi maxaa u soomaysaa wuxuu yidhi daaka yowma wulidtu fii maalina dhasha wey macnaha shukru nicmo waa ilahay kaga shukrinaa maalinka adduunyada la keenay marka qofka haddii uu sameeyo marka mathaal waqtiga dhalashada ilmihooda kale hadda khaasatan aniga yurubaan joognaa waxyaabahana lagu imtixaanaa kamid a ilmihii iskoolka la dhiganayay iyo jawigii curfiga dhana wuxuu yahay in ciid miilaad la iska dhigo marka ilmahaaga inaad bartid waa ciid miilaadka waxa waye adduunka maa timid haa sadaqa baxso marka annaga waxaan rabnaa ciid miilaad oo islaamiga rabnaa siduu nabiga alayhi salatu wasallam baray oo ahaa inuu ilaahay u dhawaaday shukru nicma marka ilmaheenna waa inaan barnaa haddaad tidhaahid birthday lama dhigin karo xaaraan waay kan meel ku awdid gadaashaad ka dhiganaa biri ilmo kale inuu raaco ayaa wax kale inuu dhigto laga yaabaa saas daraaddeed waxyaabaha tashabuh gaalada la iska ilaalinaa marka nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu noo diiday inaan gaalada isku dayno aan ku dayano oo ayaga waxay sameynaa aan sameyno sida keegaan la goynaayey iyo dalka la shidaayey iyo waxa la afuufa waxaas ma banaana maxaa yeelay tashabuh bilkufaar wey laakiin cunugayga inaan maanta u yidhaahdo aan xasuusto goortuu dhashay ilan shahaadi miilaad ay ugu qoran tahay oo u yidhaha maanta aabo maxaa maanta soo bax masaajidka tegaysaa sadaqo maanta waa soomaynaa waan soomaynaa maalinta dhal soomaha cibaado ilahay ugu dhawaa sadaqa bixi ilmaha iskuulka shukulaad wax u qaybi xikmadaha waxay kamid tahay oo laga faa'iidaysanayo in lagu farxi karo guul muslimiinta ay gaartay in ilaahay loogu shukriyo cibaada loo sameeyo ayay asalkeeda ku timidba cashuura markaa fiirisid sidoo kale xikmadda ku jirta cashuura waxay tahay sidoo kale in la khilaafo yuhuudi gaaladaa la diida anaga maadaama iyaga hal maalin ay soomeen annaga waxaa leeyahay maalin ka hormariya ama maalin ka dabamariya nacam qadka telefoonka halow 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 telefoonka dhegeysanaysaa akhi tv-ga ha dhegeysanin tv-ga ha dhegeysanin akhi halo ha waa ku maqlaa telefoonka igala hadal ha dhegeysan tv-ga tv-ga u dhegeysanaya qofkaas waxaan filayaa mar waa kagoya dhinaca kale halow halow qofkaas isagana waa ka go-aan filayaa nacam idan waxaa leeyahay marka halkaas haddana waxaana la barayaa inay diinteena ay lahayn diin ku dayasha inay ahayn diin oo waxa weeye dad kale wax looga dayanaya tabicii maaha diinteena maaha anaga muslimiin haddana ninka muslimka waxaa la rabaa keligiis istiqlaal inuu ahaado nabigu wuxuuna barayaa maxaa loo leeyahay loo khilaafo iyaga maaha isla weyni maaha dhinaca kale halow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ki asuli miya ha ki asuli caali waadu aan yidhaahdoye telefoonka igala hadal tv-ga iska dhaaf halo ha telefoonka ka hadal adig waxaan rabaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa marka oo salaada adoo ku jiro oo suaasayso adoo salaada ku jirto baa 3 goor acuudu billahi min darajim adee 3 goor afuuf adoo salaada ku jirto naftigeeda ha adoo salaada ku jirta acuudu billahi min shari rajim dhehaysaa dhinaca garabkaa 3 goor afuufeebo acuudu billahi min shari hal mar leedahay laakiin 3 jeer afuuf acuudu billahi min shaytaan 3 goor marka afuufa ma ana salaada ku dhex jiro waa afuufi kartaa afuuf insha allah yaa nacam ha ki asuli hada adaa sidee nacam aniga waa kula hadlooya telefoonka kala hadlooha dhinaca kale halow halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa universal iyo sheekha waa salaamaya waxaan rabaa hal su'aal aan wataa waxaan weydiinayaa diinta maxay ka qabtaa tusaale qof ayaa wuxuu aruuriyaa sadaqo
wuxuuna u aruuriyaa masaajidda la dhisaayo iyo madarasooyinka iyo mashaariicda khayriga ah sidaa darteed qofkaas commission boqolkiiba 20 hadduu ka goosto wixii uu soo aruuriyay sadaqada ahayd diinta islaamka maxay ka qabtaa akhi sadaqada khidmada fiiri waa mushkiladna haysata kamid tahay asal ahaan qofka muslimka ah waxaa la doonayaa waxa sadaqada inuu ka dhowrsado sadaqa sideeda inuu ka dhowrsado telefishin uu yimid ama lacag oo aruurina uu yiri wixii oo ah khidmada ah waa ka qaadan kara wixii khidma ah مثلا dadkii lacagta ka soo aruurinaya baabuurka ku raacay waxa waa la gartay laakiin inuu yiraahdo ana percentage qaadanayo ma banaano inuu xadeeto ma aha walaalka dadka markasta aayadan wal caamilin calayhi iska dhaa ma aayadan waxa waa qaydinta qayda ku jiro waman kana qaniyan waxa leeyahay falyastacfif warninka qof maskiin ah iyo noloshiisa $50 ka soo dhiibay Sacuudiga ama meel ka soo dhiibay marka adigina waxa xoogaaga sadaqaysa laadahay marka maxaa sadaqa ka aruurinay walaalka nabiga calayhi salaam qoladii oo sadaqada u diray waxay sameeyeen waxa laga yaabaa in lagu karaameeyo dawladda u badan tahay dawladda kale marna waxa dhacaysa nin wasiir ama loo diraya markaas markuu tago magaca dawladda wax lagu soo siinaya saacad dahab ama seef dahab waxa la siinaya waxaas asaga la siiyay magaciisa hebel dooyaha lama siin magac dawladda lagu siiyay waa inuu u dhigaa meesha dawladda u geeyaa way walidaalika ninkaana waxa laga yaabaa sadaqada dadka ku aruna maadaama waa daashay in lacag kala hadii ay siiyaan وهذه النبي وأودي حتى هدين لسي أودي إني أستعمل الرجل منكم فيأتيني فيقول هذا من مال صدقة وهذا أهدي إلي وعلينا أنا ودرسنا النبي عليه السلام صدقة سأرور الله مركز وزكدي على جوده مركز وعليه مال كان أنا اللي صدقة واي كان أنا اللي هدي وحول أفلا يجلس في بيت أبيه وأمي علينا ورنيك مساجد وأرورنا يو هدات حوق جاج يو عقل علمي جاي وح أو تغيير كرين وروكو في دنوي ساعة أرورين إسكداف maxaa dhacay shaydaanka ku soo wuxuu yiraahdaa la urursid wax ka qaadad oo ka dhigtay shaqo ka dhigtay marka mas'aladan wal caamilin calayha marka dhowr jeer waa ka hadlay TV-da ku imtixaan TV-da ku imtixaanan ku wax ka aruurna TV-da ku imtixaanan waxa leenahay war ilaahay ka baqa hadii ilaahay wax nii siiyay ka dhowrsada sadaqada waxa weeye wasaqda oo maalka waa markasta ina ka dhowrsataan wanaagsan dhinaca kale halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وصولي مياه السلام عليكم شيخ وصولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحن جوا سود أفريقيا واقرت مقعين ومحمد آذن واقرت شيخ وحن سؤالك ويدين لها وحن نمان با وحن أسلقا نعسنا وسو أفريكانا marka ganacsigooda qaar ayaga waxa kamid ah marka khamriga ku dhex jira واقرت marka nimanka marka waxbaan isku darsanay laakiin waxay ku mixed gareeyaan lacag khamri ka soo baxda akhi ma ka baxs lacagtaada mar hadii khamri ay soo gasho xaraan ay soo gasho lacagtaada ka baxs marka ayaga mar walba aan weydiyo wax maad ku dartaa markaan dhaha maya bay u dhahan marka sheekhu waxaan rabaa inaa iga jaahil kartid insha Allah adiga hadda laba arin aan leedahay waxa leedahay waa ku daraan waa ku xukmisay qofkaas waxa ku markaati furtay inay qamra ay ku daraan hadana waxa leedahay igana maya dhahayaan halkee ka cadaysatay anigu waxa niman aan isla shaqeynay ii sheegeen lacagta waxa niman Soomaali baa ma taqaanay shaqaaleeya meesha ku jira waxay igu dheen marka lacagtan way soo galiyaan nimankan aygi markaan weydiin waxay leeyihiin waxba kama jiraan hubi isku hubi waxa qofka muslimka inuu waxyaaba oo hubiya wanaagsan shaki iyo shubha wax lagu xukmo marka xukunka inta gaar hubi hadaad laakiin xukunka caamka ku soo waxay tahay hadaad hubisid inay qamre ay ku ganacsanayaan lacagtaada ka baxso اوكي ان شاء الله شيخ وما سنت خير الله كسي بارك الله فيك لنعك الهلو هلو افكاس واكا قوان فيليا لنعك الهلو هلو 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 واكم مغلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف بيتا الحمد لله waxaan ku weydiinaya maalinta cashuura ma sabtiga ku aadantahay sabtida ku aadantaha marka ma laba maalin marka oo sixitaal rabaa in la soo mase waa hal maalin maya halka maalin hala khilaafaalin haddana halka maalin sabti ku sii aada sabti kaligiis lama soomaba waxaa fiicnaa jimci sabti soontida ama jimci sabti axad ama sabti axad insha Allah nin keen jooga caawa jimci noota inaan caawa oo kala soomadana sabti inaan ku adeego fiican sama saasaa fiican ha هو ما سنتك بارك الله فيك لنعك لا
الو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan ku weydiinayaa qalla la yidhi ma waxa uu niyeysanayaa qallaha mase labadaba waa uu niyeysanayaa qallaha uu niyeyso tan kale waa soo hosgelaysaa insha Allah qallaha uu niyeyso haya jazakallahu khayr naam dhinaca kale halo الو ها شو عثماني شو عمر ما شاء الله يا رب عمر سوا في عنتها اخبارك خير الحمد لله معك ورسنا يوم العنشورة ها هذه مع ليزا مركي اون فرعون لغرقي بني اسرائيل نفسي ولكن ودنكا الصومال مع لي مركي اون نبي نوح سلام عليه مركي نبي ابراهيم دبا لغا خوري markii nabi ayub arimaas ma sugna arimaas ma sugna tan sugan waxa way fircoon xadiiskaas oo soo aroor xadiis خير يا نقول بارك الله فيك يا نقبل ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله dhinaca kale السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أصولي وبشير حسين وجوغا نيروبي كيا واقرت sheekh waxaa ku weydiin rabay waxaa lagu lahay soon horaa lagu lahay oo adiga dhowr sana kasoo wareegtay marka inaan mar walba soomaan rabay haddana mar walba waa kuleeto waa iska sahlanayay waa iga hoos bixaysa markaa dartan inaan waxaan rabaa aan soonkii aan celiyo ma garat waa fiican tahay wax fiican waa celi marka culummada marka ma waxaa la bixinaha la yiri marka lacagtaas cuntadaas la bixinayo inaan ii sharaxtaa jeclaa lahay yaa daa hormari kara hal mar aan wada dhiibi karo horumari kartaa waa bixi kara waana dawmari kartaa lacagta la bixinayo mar kasta ama waa la horumari karaa waa gadaalna waa laga bixin karaa dhib ma laha meeqa sana ku qiyaasaysaa soonka waa isleeyahay waa soddon bil dhana lagu leeyahay isku darka macnaha wax dhan markii lagu soddon maalmood waa soo ma marka soddon maskiin quudi wax sii ama neef u qal quudi soddon maskiin ama lacag ay wax ku cunaan hal mar ay ku dhirgaan maqaay ku galaan ay ku dhirki karaan sii kadibna ayr soo qalay ayr marka dambe soo qalay isniin khamiis as guud insha Allah okay waa madsanta barakallahu fiik dhinaca kale halo halo afkaas waa ka go'an filaya dadka markay hadlayaan waxaa wanaagsan telefoonka ha igala hadlaan tv-ga ha iska gaabeen ama ha ka fogaadaan maxaa yeele haddii tv-ga dhegeysanayaan ma ismaqleyno halo halo ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عربي أساكل هذا التليفون كهذا التي في اسك قابي شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ قلال يقول هاي marka qaladii ma u niyeysana iyo cashuuradii geelay sunnadii waxa dhan u niyeysan insha Allah qalad u niyeysan insha Allah ay barakallah ay dhinaca kale halo نعم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج من سؤاله سؤالنا حاور شيخ رأينا هاي أصلا كل هذا تلفونك هذا تي في كده اوكي waxaan rabaa inaan soonkood oo la soo maayo soonka sar marka goorma la soo ma taaratoon ma la soo oo bisha oo sagaalka oo biri ah iyo sabti oo 10 ah ala soomay ama sabti ahad ama saddexda biri soon jimcu sabti ahad la soomi karto soon saddexdan soom karo soomaan ka ma san soo ina kala law halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي الشيخ عن الهدر ساقا كل هذا التليفون كالهذا شيخ عثمان سولي فيري شيخ وحن كويدينا نيو عريق كينيا كاسا وحا مقالة بمباسة كودة واقر وحاوي ماشا وحاجران بنجيال واقر بنجي مركز تكتا وحاي كستينايين شه ay ku siinayeen ama waxay ku siinayeen maaragtay biyo ay ku siinayeen waa gar biyahaas niyow ma xalaala mise waa xaaraan sababtoo bangiga xoolihiisa dhan waa ribo ma adig waa cabi kartaa waxba kaaga jiro waa lagu siiyaaday ma xadday ma xoogtay wixii lagu siiyaaday banaan oo ku banaan tahay wixii warac ahaan ugu tagaysay taqwadaada nin dhowrsanaya daa tahay oo warac ahaan
laakiin xaaraan maaha waa adii xaaraanka haddii inta goon ay shaha istiyaan iska cabo xalaal waay xalaal ku tahay hay insha Allah dhinaca kale halow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سولي سؤال وحن قبا صومك كساب الشيخ وما قرأت. هاي. أنا واحد رمضان وحن جرمان تصدم رمضان نادي عن صوص صومينا مت عن صدم لما يستمع حزوز الشيخ وما قرأت. ما قرأت. مركا حتى صدم جرا ما ترد. ها. حتى كي سنة كهراتين أنا ما يسمعوه كي سيهوري موجود معه. صوم هذا ما يستوي الشيخ صوم والبوح بقى يقطع ما قرأت. واكرت ما حنوصن تاي. ماي الحمد لله وعاف ما قبا لكن ضل يرني مو يقطع الشيخ ما قرأت. واكرت. مركا إلهي يقدم من دافع الشيخ ومركا وحنا وباهنا هاي قاب كيسون كاس أقول لك على صلاة أنا وحوي مركا حوجا وضبا سي إيجا نقول يساوي أيدي إيجا تكتانر كيايو. وجويسان كواه ما قرأت شيخه إلهي قدم دافع. أخي إلهك أودي بدافع مركو هراء قفك مسلم كإنه الصوم كي صلاة كتاج معه وأنا إلهي توبة كين توبة على جربا. مثل كله أسبابه وعبادة كودي سو حاران تكميديا قفك مركو حاران وقالوا عبادة وكثير فوق هذا معايا لي أنت حاران تكفوقتها أي عبادة وقدوده وسيئات حمد وأسوعتان وحسن ما يسامرك أسبابها كو كالمينايو أخي دقيق وحير أسبابها كو كالمين وحالي وصاحبك حن المرء على دين قليله صاحبك بدل هذا مقالة أجوك نفط جاد بيسي كأنك جيسو بدل مقالك الأجور إن توبة أقبله سير عبادة أو قالت هداج وحاران كل حجرت حاران تكبح هداد بين التقانيد بين إسكيا إلهي إسقابه مركزته إذا إنه صوبته مركز هذه إصبار قفك إنه إصباره ودب إسكو النقض وحكى قال ده كل جا صوق قلي قفك أسهلية قفك مركو حساب أسجع سيد عمر بن الخطاب وشيء وأسهل كرا ماشي لقى ماشي لقى أسيب وأهل كريا مركز دب ولا بق خلاص على جاربة صون كاسنا قياس أنت تهي صدق صناتري ما يقملنا كفك جرتي حساب مركز سوق اللي أير سوق اللي كفارة ذي نبيه كفارة وين صدق مسكين هل مر بس نقودنا يا سوما هذه صدق مالموتة هذه اللحظة ما هذه مالمها إبديين هذا أكو أنت مالنا كتكت شيخو هذا أنا قرأنا نكور مالمي أنت أبدنتها حس غلبة الظن أنت أبدنتها سمينيسا إن شاء الله جزاك الله شيخو خير الله تسيو بارك الله فيك آمين جزاك الله لنعك هلو أفكار تي في قول لي سنة هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الشيخ أنتوني تليفونك يقال هذا التي في اسكي كابي هاي الشيخ ميا شيخ زوري شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحارب إلى كويتية hadda ka hor haddii qof aa ballan wada gashaa oo ballankii kaaga xoolo aad ku darsataan oo qofkii ku dhaho ama rasiidkeen ama markhaatidkeen adii isaga ilaahay bas is ogeydeen oo markii aa u dhiibasana qofna kula joogin oo kuti ani ilaahay waa is ogeyn lacagteeda isu ku dhaho ilaa aragtid ii ka dhaxma ku siinayo haddii kale meesha wax ka dhe maxaa suubina ilaahay ma adduunyadu caddayn kuma haysid albayinatu cala almuddaci walyamiin cala man ankar مر هدي أدوح كل شيء قتي عدينا الجربة هدو أصلا إله كبق واي لكن حقاس ولا جربة مركز حقاس إله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع مال امرئ قفك جوستا مال أوجيها ولو آمني وقفك هذه إله درس وآمنته وحكلا قرن عدين كلا قرن هدو عدين كل حجيو مالك خير بدن كوكينا قيامها أيضا قرط لو قدو دوبي أي ما نسامرك إله كدي كلي وحكلا ماله جزاكم الله خير شيخ إله خيرك في حاضرين كسب السعر بعد كساس ودعاء الصومالي إن شاء الله نعم إنعك هلو هلو waxaan ku weydiinaa sheekhow soon iga tegay macnaha ii sheeg meeqaan bixinayaa badar ceeriina ma bixi karaa qadar meeqaa camal bixinaa badarkaas ceeriin dhib waay waxaa ku wanaagsan inaad quudisid إطعام مسكين عليه إن عنا لصيه طعام لصيه مركا وكو بنانتها غيرين لكن حكوا فل بدن إناد أنت مسكين ويا أنت مال ما يقمالين ومعلومها كاتج
soddon biri waaye soddon maskiin ama hal maal wax uu qari ama min $5 iyo haddaad siisid kafaaya ku taa waa ku dhergi karaa hal fadhi waxay meel u cunaan ay ku dhergaan al rabaa kaliya laakiin badar ceeriina ii yaalo waxaan rabaa badarka ceeriinka inaan bixiyo bixi waa bixi kartaa meeqaa malaba qadar meeqaa bixina waxaa bixinaysaa hal suus iyo bar hal suus iyo bar axsan kaas kiilo ahaan wataa shiqo 2 kiilo iyo bar 2 kiilo iyo bar hay aad u maasan tahay khayr la ku sii nacam dhinaca kale low السلام عليكم ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ waxaa inaan ku diiday shares-kan laga gadanayo kambaniyada maxalada aan taxaraan maxaa tiri shares kambaniyada laga gadanayo oo stock market shares la gadanayo sharekeena maxalada horta sharka ii sheeg muxuu yahay meel kasta share la gataay sharka muxuu yahay may tusaale stock market ko kala waxaad kambaniyada online lagu kala gadanayo hadda Apple oo kale ama Microsoft oo kale waxay qabanayaan ku xirantahay waa adiga tafaasiisha keen markaas lagu sheegi karaa waxay xalaal iyo xaraan yihiin tafaasiisha keen waxay qabanayaan hawsha qabanayaan ma hada salaam waa ku sheegaya dhageysta Apple maxay gadaa Apple waa weentay electronic iyo hadii hawlo kale ay gado waxyaabo kale ganacsigeedu ku jiro maxaa ka ogtaadi ma ganacsigeedu waa waxaad kala ganaya alaabta waxay mobile iyo computer gadaan mobile computer waxa la gadanaya ma waxa share kooda waxa laga gadanaya stock market fahmi stock market ka fiiri hawsha la qabanayo ayaa la rabaa kambaniyada waa weyn waxay dhaafaan maal wax kasto xaraan iyo wax kasto ay ganacsadaan hadaa share ka gadatid ma xaraan ku jirto dib way haduu waxa ganacsanaya wuxuu ka ganacsanaya kambaniyada haduu xalaal yahay ma laga gadan karaa okay waa haduu xalaal yahay waa share waa la gali karaa السلام عليكم جزاك الله dhinaca kale hallo الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو qofkaas waa ka go'an filaya qadka الو السلام عليكم way maqlaysaa الو oo ku maqlaa sheekh السلام عليكم weyd su'aashaada marka su-aashaan waxaa waaye waalidkayga ayaa dhintay markuu dhimanayana qallaa lagu lahaayo oo soon ah oo hal maalin ah ma u soomi karaa soonkaas waa u soomi kartaa ha oo ana waa u soomi karaa sooma adi waalidka waa sooma adi waalidka waa ha abeya ha waa u soomi kartaa maasanta sheekh nacam dhinaca kale beedho الو الو ها شيخكم مقلا من ها تفضل وين السؤال يا اخي واكم مقلا codkaaga waa gogo'a codkaaga waxba waa gogo'aya mararka qaarkood waa ku maqlaa laakiin codkaaga waa go'aya dhinaca kale hallow 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 ها الشيخي با ها شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو برنامج كي الله يفتح هاي السلام ها شيخ وعن كويتي ها qofka salaada ka tagto intuu dooran muddo ay ka tagto ma soo qallayn karaa ها ma soo qallayn karaa waa soo qallayn karaa waa laga rabaa qallada 10 sano haddii ka tagtayna salaad kasta duhur ha ku daro ilaa ay tii raba kaga imaanayso ama uu isdhihi karo waa gudday casr ha ku daro 10 sano sidee loo qallayn karaa 10 sano hadda adiga iska wad ilaa iyo aad u malaysid 10 sano waxay ahaatay salaada duhur kasta salaad kale ku dar madhabka shaaficiga annaga soomaalida qolkaasaa qabnaa waa jiraan culamo dhahayo ninkii salaada ka tagay gaal waa kaas maadaama uu gaal naqday markuu hadda soo shahaatay islaamnimadii marka ayaa ka baabi'isay wixii hore marka in gaalnimo lagugu xukmo oo aad lagu yidhi hadda diinta soo gashay inay wixii baaba'aan laakiin inta kale waa lagugu leeyahay maxaa yeelay xadiiska nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi man nasiya can salaatin oo naama canha falyusanix dakaraha qofkii cudurdaar sharciga ugu tagtaa waxaa la yidhi ha soo qalleeyo iska dhaafa ninka kale fa min baaba owla nacam dhinaca kale hallow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
aan ku weydiiyo allah ku barakeeye lacag oo foorka lacag ku darsaday halo waa ku maqlaa ها شيقو تيفيك اسكا دا تليفونك igala soco waxaan rabay inaan ku weydiiyo kheyr allah ku siiye foorkisaan daday marka lacagaas ma xalaala ma soo xaaraan wallahi nooceeda ii sheeg foreska hadda waa la isku dhacaa howlo badan uu yeeshay waxa uu yahay inaa ii sheegtida weeye fiiri qofka markuu ganacsi galay waxaa la rabaa soomaalida mushkiladina haysta waxay tahay markay ganacsi galayaan faa'iidada keliya loo sheega waxaas lacagaas 500 bil kasta lagu soo dira kuna lagu soo dira waxaa la rabaa qofka muxuu ku shaqeeyaa foreska nooc xalaala jira nooc xaaraana jira brokerka siduu wax u dhiibo habeenkii si lacagta loo barisiiyo nuuciye leedahay marka wixii ma kala taqaanad adiga gabdhaha in badan lacag looga dhacay ilaahay xaqiina ilaahay subxaanahu wa tacaala hani soo saar wax kale nima dhahay marka su'aal dhahaysa foreska xalaal miya su'aal dhahay ma jirto su'aashu ana tafsiil ila hata insha Allah nacam dhinaca kale halo gabadhan sheekhow gabadhan way ku rugtay balla hadal wax su'aalay iyaduna qofka هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها شيخو ديو إن أنا اللي أقولها هاي أو إيجا تجي مركا إن بشو شعبان سوق شو حالي ديسون كدي شني تمك شعبان جارسون دين ملجودي كرو مركا وإسكادو إسجارن وكولا ويجبار مالي دسيدي على بس إسكوك جارت مركا يو sooman kale oo gadaal ah marka raashin nimeys inta beri oo laygu lahaayne ma xasuusto laakiin wax badan aa sooma way jirtaa in tiradii oo soonka laygu lahaa inay gaartay inta u badinaysid laga raba qaado qofku waa ilaabi karaa wax laakiin inta u badi karo dhigi kara dimadaada asaasay beri ku tahay saana ku nabad qabtaa safe ku tahay saas samay haddii wax ku dhamiin wax ku dar haddii istiraahid waa la gaaran iska dhaaf laakiin mas'alada oo lagu qaldo waxay tahay qofka qalada gudayo waa soomi karaa 15 ka dambayso maaha shacbaan ma soomi karin lagu dhameeyay waa soomi karaa ilaa iyo waxa la diiday hal maalin ilaa maalin ciid markay ka dhiman tahay soonka in la joojiyo ay tahay laakiin ramadaan ka dhiman yahay hal maalin ilaa maalin laakiin in lagu yiraahdo nus ka dambe dhan ha soomin waa taas waa lagu qalday mid kale soo qalay wixii qaladaasna kafaara laga rabaa wixii shacbaanka haduu ramadaanka kale haduu ku gaaro waxa laga rabaa soonkaas miskiinna quudi soon qalay insha Allah نعم هاي شيخ ومحسن اي بارك الله فيك دينا كله الو الو تيفيك اسك قابه تليفونك قال هذا تيفيك اسك قابه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ الحمد لله شيخ waxaan doonaynaa su'aal ku weydiiyo haye walaalkay baa dhintay sanad ka hor ilaahay naxariistay ilaahay naxariistay ha gaarigu wati markaa meel kale baan joogaa shanqadan sidii saalina markaa gaarigu hayso gaarigii baa intii hooyo iibisay bay shaqa ku iibisay gaarigiisii ha shaqa lagu iibisay carruur ma laha asaga naxaas xaasas uu leeyahay waan soo wadaa haye gaarigii shaqadii markaa wuxuu gabadh buu qabay laba kala hooyana carruur bay u kala leeyihiin وفري marka shaqadii hooyo waxay leedahay waan anna waxaan ku leeyahay hooyo carruurta adoonta iskale ma aragtaa ama shaqada carruurta kale ma hooyo xataa waxay ku leedahay dhaxal ay ku leedahay sudus ay ku leedahay maadaama uu carruur dhalay lix meel haddii loo qaybo hal meel ay ku leedahay hooyo hooyadiis isaga aabihiis ma nool yahay ya asaga aabihiis ma nool yahay aabihiis may wuu dhintay aabihii marka carruurtiisa iyo xaaska oo asayda u qaaday kuwa fur iska dhaaf ha gabadha hadda saakadaas ay umushay gabadhaas gabadhii uur bay lahayd carruurtiisa wiil ma ku jiraa ha saaka wiil bay umushay marka inan kaloo hooyo dooni qabeen uu furay gabadha kalena wiil bay u leedahay khalaas marka hooyada iyo carruurtiisa dhaxlay kaliya iyo xaaskaas oo asayda qaaday marka jagada hala gado ha loo qaybiyo lacagtaas insha Allah ay khayr Allah insha Allah ina kala low الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تليفونك قال سعود تي في اسك قاب. بعد محمد
ahayd oo ka soo wacay magaalada Baydhabo. waa gartay haye qofkaas waxaan maleynaya internetkiisa daciifa sheekh ku maqlay TV hadana waxaan rabaa iska daa telefoonka igala hadal TV iska gaabi ama ismaqleen haddii kale waa kaa go'aya mar dhow TV iska daa haye weli TV wuu daawana su-aashkooda waxay tahay soonka oo muxaramka darsoomaaye ma daawanaya waa ku maqlaa TV-ga ma iska gaabi kartaa TV-ga iska gaabi telefoonka ka hadal weli TV-ga uu daawanaa qofkaas dhinaca kale halow halow halo telefoonka igala hada TV-ga iska gaabi haye weydi su-aashaada maya hadal weydi weydi halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما إلى هلا. ها. شيخ سولي وحان ربي وحان كودي ربي مسايدة وحان بلن قاضي وحان بلن قاضي مسايد اللي عاقا بلن قاضي. واقر. مرك تيفيجي سو فريستين مركا سنة كسوني ما إسوا وحا يندها بيا بلن قاضي مركا مالا أنكو هجاكي ما قان مركا إمامك إيديبا هدان أقر ورقد ma ii soo jawaabay marka maxaan sameeyaa ma sadaqada meel kale ma ku dara masaajid kale marka asagi ma waxa imaamka ii masaajidka halkan wadanka ku yaal ma garanaysaa wadan adiga Yurub kamid oo ahay mana xasuusatid mana gatay okay masaajid kale ku dar masaajid kale ku dar lacagtaas aan ku dari karaa ma masaajid kale meel kale ma masaajid kale marka walwala ugu hay marka lacag adaa bixi u balan qaad waa haya mas'uul raasay marka masaajid kale ku dar insha Allah haye sheekh waxaan kale ku weydiina salaad subax walba iga mar walba leedan soo kaca waa qaleeya sunnada ku daraa sunnada marna waa ka dawo mar sunnada waxaa ka daran salaadaas ka qaloobaysa wax kasta ka daran waxay dhafar dhafartid asbaabaa jirta oo salaad subax kaaga tagaysa asbaabtaas iska ilaali maxay qofka muslimka salaada subax waa dimada ilaahay u galaya qofka inuu ku tukado marka waa qatar sahalsan insha Allah hurtada ila tagto maya waa dahda dhafarkii wixii ku dhafriya iska ilaali weys ku seexo marka seexanaysa insha Allah halo 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 السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor baa wiil baa wuxuu soo xaday TV. waa gartay. TV-gi anigana maan ogeyn inuu soo xaday TV-gi waan iibsaday kadib ayaan ogaaday inuu TV-gi soo xaday TV-gina wuu ii yaalaa. yaa ku sheegay se ku ogaateen mar aad kala tagtay inuu soo xaday walaalkii baa ii sheegay inuu soo xaday muddo markay ka soo wareegataan maan ogeyn laakiin markaa soo xadeeyay fiir wax cadeyna loo baahan yahay haddii oo hubtid inuu soo xaday ma bannaan inaad gadatid beecaasna maxaa yeele beeca wuxuu ku ansaxaa beeca bima tamlik waxa adiga leedahay oo qofka gadi kartaa wuxuu isaga lahayn oo soo xada beeciis ma ansaxayo marka anigu maan ogeyn markaan iibsanayay dib baan ka ogaaday walaalkii hadda walaalkiis u sheeg lacagtaada ku soo celi TV-ga si ma sii kartaa waan siin karaa telefoonka TV-ga si lacagtaada lagu soo celiyay haye sheekh waad mahadsantahay waxaan filayaa su-aashaas ayaa ugu dambeysay waqti ayaa gabagaba ah waxaan daan qalda nafteeda iyo shaydaana ka ahaatay ilaahay dembiga ha dhaafo haddaan saxanay tawfiiq ilaahay subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu